wadamada gartay gobanimada yada garwaaqsaday xornimooyinan gaarugooy qiigi kaste guushayada jecel abal kunahban gaarugu haya abal kunahban abal kunahban gaarugu haya wadamada gartay gobanimada yada garwaaqsaday xornimooyinan gaarugooy qiigi kaste guushayada jecel abal kunahban gaarugu haya abal kunahban abal kunahban gaarugu haya midku gaasiro gushada nicay kunta hooseeyo gudkan kala socda garabiyo xigaal maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii labaad 2021 waxa xarunta wasaaradda runtii ku yeeshay kulan wafdi ballaaran oo ka socday waxa ayna kala ahaayeen sida UK, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Finland iyo wadanka UK oo iminka ay ogtiin inuu Yurubiyaanka isagu maxaa dhahay runtii kama banaanaaday ay yihiin waxa weeyaan wadamo ka shaqeeya dimuqraadisationka Somaliland doorka ay ku leedahay doorashooyinka iyo dimuqraadisationkana runtii horena xiriir nooga lahaa maantana inay xoojiyaan inoogu yimi ayaanu maxaa dhahay kulan halkan ku yeelanay taasoo runtii aanu aad ugu lafaguray sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen hawsha aynu wado iyo wasaaraddu si gaar ah u wado oo lagu lafaguray horumarinta shuruucda doorashooyinka dimuqraadiyadda fahanka wadaniyadda iyo muhiimadda doorashada iyo wadaniyaddu ay leedahay taasoo runtii waxa weeyaan aan si wanaagsan oo mug leh uga wada hadalnay inaanu isla fahanay inay muhiim tahay hawsha ay wasaaraddu wado qorshana ay ka tahay baarlamaanka soo socda golo wakiil iyo mid deegaan labadaba in la siiyo tababaro ku filan waajibaadkooda si hufan sidii ay u gudan lahaayeen dhiirigelinta bulshada dhammaan dhalinyarada iyo haweenka iyo sidii wadaniyaddu ay hana qaadi lahayd ee ay mustaqbalka u noqon lahaayeen bulshada Somaliland ee da'da yari mid fahansan dastuurkooda iyo shuruucda ka farcamaysa